weydo wax uun bixi ikhwaani sadaqada cajaa'ibteeda waxaa ka mid ah oo markaad maqashid aad naftaadu waxay damcaysaa wax kastoo heshay inaad bixiso xaqiiqatan wayna mudan tahay qofka wuxuu sadaqaysto wax ka badan baa ilaahay ugu bedelaa $1 haddaad bixiso $10 baa ilaahay kugu bedelaa xaqiiqo wey waxaa daliil u ah caaisha radiallahu canha gabadha muslimkaah bal dhegayso waa umulmu'miniin waa qofka aad rabto iyadoo kale inaad noqoto oo jannada la gasho maalmaha ka mid a iyadoo sooman oo gurigeeda ay yaalaan 2 xabo oo khubus ah waa 2 xabo oo canjeela ama jabaati ama rooti oo taqaanaan ayaa miskiin baa guriga kusoo garaacay gabar khaadimadoo la joogtay bay tii albaabkii uu fur waayo way furtay waa miskiin sayta xabad si halbay siisay xoogaa kadib baa qof kale oo miskiin u soo garaacay saytiri waayo sayta waa miskiin kale sayta xabadka kale si sayta yaa umulmu'miniin maalin walba waxaad haysato dhan intaad bixiso yaa hadhowna waxaad weedaa waxaad ku afuraysaa sayta adu iska daayay si xabadkii bay qaada way siisay xoogaa kadib ayaa qof kale albaabka soo gargaraacay bal fiiri ma miskiin kala haddii miskiin kale maxaa la siin oo saddexaad albaabka taagan gabadhii baa albaabka furtay waxaa taagan nin adoon ah oo wuxuu wadaa dabaq saxan weyn oo neef ari ah waxaa dul saaran hilibkiisa la shiilay barbecue anagu naqaana isaga dhan la solay oo rooti dusha ka saaran yahay tiro badan markaasuu wuxuu yidhi ehelkayga reerkayga baa waxay igu dhaheen umulmu'miniina ugeeha ku afurtay waa hadiyad markii gabadhii ay soo qaaday caaisha intay qosashay waxay tidhi cun waa khubzun khayru min khubziki waa khubuz ka khayr badan khubuzkaagiyo cun ilaahay agtiisu ka yimid ilahay baa soo diray tabaaraka wa tacaala fadligaa fiiri bal cajiiba waa caaisha labaday haysatay bay bixisay intaas oo rooti iyo hilibaa loogu bedelay haddaad dhibaata ku haysato ama faqri ku hayo ama waxyaalaan ku haysato caaisha ku day waxaad haysatid bixi wax ka badan baa ilaahay ku siin waxyaabaha sadaqadu samaysa waxaa ka mid a waa mas'alo aan isleeyahay wallaahi maanta dad badan oo muslimiin aha u baahan daawu mardaakum bisadaqa qofka jiran sadaqa ku daaweeya weligaa xadiidka nabiga intaad maqashay sala allahu alay wasalam isagoo qof kaa jiran yahay ma u qasaday inaad ku daaweysid sadaqo sida nebigu sala allahu alay wasalam waxaa dhacday imaamu alxaakim abu cabdillahi alxaakim qisooyinkan sheegaya inta badan qofka raba wuxuu ka akhrisan karaa kitaab la yidhaha min cajaa'ib sadaqa oo cajiib ah oo sadaqada si cajiib uga sheekaynaya imaamu abu cabdillahi alxaakim ayaa jiraday wejigaa waxaa ka soo baxay boogo marka isbitaal dhakhtar buu u tegay wax kastuu sameeyey daawaa loo waayay maalmaha ka mid a isagoo darsi akrinaya wejigana dhacaamaya oo sheekha dhibaata ka haysato ayaa waxaa arkay wuxuu soo galay masaajid abu cuthmaan assaabuni uu darsi ka akrinaya sheekha caqiidada caanka ku ahaa kutubka caqiida iyo firaq bidaca in lala dagaalamo markuu soo galaybu wuxuu yidhi imaam abu cuthmaan assaabuni baa wuxuu yidhi u duceeya imaamu abu cabdillahi alxaakim inuu ilaahay caafiyo dadka waxay dhihin ilahay ha caafiyo isagoo subaxii dambe darsi xadiida sheekhi akrinaya ayaa waraaq baa hortiisa lagu soo tuuray waraaqdiibuu furay waxaa ku qoran gabar baa waxay dhahaysaa muslima xalay baa waxaan ku riyooday nebiga sala allahu alay wasalam riyan ku arkay cajiib markaasuu nebigu wuxuu igu yidhi waxaad ku tiraahdaa abu cabdillaahi alxaakim waxaad ku dhahdaa yuwasic ilmaaa lilmuslimiin muslimiinta biyaha siiyo biyaha sadaqaysto sheekha darsigii buu dhameeyey markuu dhameeyey ayuu kacay gurigiisa derbigiisu wuxuu ka qoday barkad intuu niman xamaaliyaala u yeelay biyaa lagu shubay dariskiibaa ka cabay wallaahi 7 beri kadib boogihii way dhamaadeen way baaba'een cajiib wey maanta qofka muslimka waxaa haysta kansar waxaa haysta xanuun waxaa haysta dhiigkar waxaa ku haya xanuun kasta diabetic sonkor baa ku haysa xanuun kastaa ku haya xanuun ma ku hayaa xadiidka nebiga intaad aamintid daawo mardaakum bisadaqa bal fiiriba sadaqa baxso bixi ilaahay isagoo daaweeye baad arki doontaa way dhacday marar badan bay dhacday qisooyin xadiid ah baa dhacay oo hadda waktigan la joogaa waxaa dhacday qiso cajiib ah 2 cunug oo yaryar oo walaalaha ciyaaraya ayaa mid ka mida dhegta isha waxaa ka galay qori waxbaa ku jabay isha way dhacaamaysaa waxbaa ku jira dhakhaatiirtii loo geeyey oo dhan way ka baqeen isha meesha madow wey dhakhtar kasta wuxuu leeyahay anuu cajiib ma taaban karo waa khatar ishaan haddaan taabto isha wuu beelayaa cunug
hooyadii way iska oyday way dhibaatootay cunugii ma seexan karo indhihii biyaa ka da'aya maalintii dambe waxay maqashay nabiga sala allahu alay wasalam xadiidkiisa daa'u mardaakum bisadaqa ma nabigaa yidhi sala allahu alay wasalam arrinkaa waa inaan fiiriyo sadaqay bixisa sadaqa weyn bay bixisa waxay tiri usbuucii dambe cunugii baan check up dhakhtar geeyey dhakhtar baa wuxuu igu yidhi bay tiri bal anaa ku nasiibsanayo cunugaan baroobaynaya inaan qabo markaasuu markuu weysitaynayay ayuu ishii saas u taataabtay wixii oo cadba furduq ka soo yidhi oo bannaanka ku soo dhacay allahu akbar markaasuu dhakhtarkii wuxuu yidhi wixii way soo baxeen gabadhii waxay qalbigeeda ku jirta daawu mardaakum bisadaqa nabiga sal allah alay slam cajiib weeye ka faa'iidayso akhi jiraa ku haysta dhib baa ku haysta meel kale ha aadin waa caafimaad nebiguna baray sala allahu alay wasalam waa caafimaad cibaado ah ka faa'iidayso isku day samee waad ku caafimaadtaa insha allahu tacaala haddaad ku caafimaadi weydid xoogaa iimaankaagaa hooseeye eh intaad iimaanka xoojiso ood aamintid xadiidka nebiga samee waad ku daawoobaysaa xaqiiqo wey arrinkaas arrin kaloo cajiib ah oo sadaqadu leedahay waxaa weeye arrinkaasi sadaqadu waxay celisaa balaayooyinka iyo musiibooyinka maanta musiibooyin baa dhacaya badan carruurta musiibaa ku dhici baabuur baa kula gadoomi jirkaa kugu dhici masaa'ib baa soo degi dukaan baa guban reer baa isfuri oo isdagaali qof baa waxaa ku dhacaya jiro degdega musiibooyinkaa tirada badan ee dhacaya waxaa ilaahay ku difaacaa sadaqada waxyaabaa yaab kale waxaa ka mida moxamed ibnu wadaax raximahullah waa nin culimmadii hore oo muslimiinta caanka ayd ka mida ayaa maalin maalmaha ka mida isagoo darsi xadiida akrinaya oo fadhiya ayaa waxaa u soo galay nin orday markaasuu wuxuu ku yidhi cunugaagii yaraa ayaa waxaa ku dhacday taayir baa beer lagu falayey beerta taayirada waaweyn oo loo ujido oo lagu falayo ayaa ku dul dhacay sheekhii wuu fikiray wuu aamusay xoogaa wiilkii ardayga ah kitaabka akrinaya wuxuu yidhi wad darsiga sii wad wiilkii darsiguu iska waday sheekhu iska aamusay waxba ma dhihin qof haddee la yidhi ilmahaagii baa balaaya ku dhacday oon kicin oon isbedelin oon qiiroonin oo aan ooyin oon nixin ka war darsigii markii uu xoogaa socday ayaa nin kale ordayaa soo galay markaasuu wuxuu yidhi abshir bishaarayso moxamed ibnu wadaaxow wiilkaagii taayirkii waan ka kicinay waxba ma gaarin maradiisii unbuu la haray maradii unbaa ku dhegtay taayirkii xabad wiilkii ma gaarin ninkii sheekhiyaa wuxuu yidhi awalaan yaabayey awal ayaan yaabanaa saaka waxaan arkay buu yidhi wiilkaa yarka ah oo albaabka maskiin soo gargaraacay xabado khubus oo rooti ah siinaya markaad hadda idhahdeen buu yidhi dhibaataa ku dhacday waxaa isu kay qaban weyday saakuu sadaqa baxsaday haddana musiibaa ku dhacday arrinka asalkuna wuxuu ahaa asadaqatu tadfacu lbalaaya sadaqadu balaayooyinkay celisaa marka wuxuu waa isu kay qaban weyday laakiin waan fahansanaa inaan wax ku dhacayno qofkaas iimaankaa fiir akhi haddaad sadaqa baxsato ood maanta wax sadaqaysato musiiba kuma dhacaysa dhibaata kuma taabanayso ma ku daraa qiso kale insha allahu tacaala waxaad moodaa qisooyinka aad bay u badan yahay qiso kale a idinku daraya oo cajiiba waxaan rabaa qofka muslimkaa inuu baldareemo fadliga ay sadaqadu leedahoon daawo ka raadin kitaabka min cajaa'ib sadaqa sheekha ayaa wuxuu qoray wuxuu yihi anoo meel nin macalimiinta ka mid oon ku kalsoonah wuxuu ii sheegay buui anoo meel taagan baabuurta laga raaco ayaa wuxuu yihi waxaa ii yimid cunug yaroo ordaya oo miskiin ah markaasuu yaa cam adeerow waxaad isiisaa 10 riyaal 5 riyaal wax un isii aan khubus ku gato maxaad ku gadanaysaa shawaarmaan ku gadanaya 5 riyaal baa intaan soo bixiyaan siiyey buui 5 riyaal baa intuu aad u farxay buu la orday buu wuxuu ku galay biyo makhaayad buu galay wuxuu yihi anoo cunugii weli ka fakeray cunugii maskaxiisu ku jira ayaa wuxuu yihi waxaan anigii 4 kale yaa baabuur taxi asla kiraysanay wadamada muslimiin taxi waa la soo sheer garaya markaan xoogaa soconay ninkii taxiilaha baa i caayay oo nin adiga nin xun baa tahay adoo kale ma qaado iga deg taxiga oo nin aniga maxaad iga rabtaa oo nin khabiis baa tahay nin xun baa tahay waa isdagaalay waxaan irabi waayo lacagteeda ii celi waa kaa harayaa lacagtii wuu ii soo celiyey waan soo qaatay waa soo lugeeyey meeshaan taxiga ka soo raacnay baan nimid anagu wuxuu xanaaqsan oo isdejinayaan meeshii imid baabuur kale aan soo raacay wallaahi wuxuu yidhi markaan xoogaa kadib soconnay ayaa waxaan u nimid baabuurkii oo intuu gadoomay oo uu gubtay 4 nin iyo darawalkii 5tiiba ku dhinteen waxaan fahmay buu yidhi sadaqadaydii baa iga soo saartay iga reebtay musiibadaas akhi waxaad xasuusataa maanta waxbaad sadaqaysanaysaa aduu ma ogid
waxaad dhici karta shil baabuur inaad kaga badbaadi musiibo carruurta inaad kaga badbaadi jirro xun inaad kaga badbaadi dukaankaa oo guban lahaa inaad kaga badbaadid waa security way waxaan hadda la yidhahdaa life insuransiga oo la geli dadku galaan way waa insurance way waxaad noqonaysaa qof ilaahay uu xifdiyey waxaan kusoo khatimayaa kelimadan hadduu qofku wax haysto ama uu xili karo oo wixii uu ku bakhaylo ilaan sadaqada maalka ilaahay baa bixiya ilaahayna dadka uu gacantooda geliya wuu imtixaamaya dadku qaar baa lacag haysta mid baa wax yar haysta mid baa wax badan haysta qof walba waxaa rabaa wuxuu haysta wax la-eg inuu bixiyo hadduu bixin waaya maxaa dhacaysa waxaa dhacaysa inta lagaa qaado ayaa mid kale oo bixinaya la siinaya ilahi wuxuu yidhi wain tatawallow yastabdil qawman hayrakum uma laa yakunu amhaalakum haddaad jeedsataan ilaahay wuxuu idinku bedelan qolo idinka fiican oo idinka oo kale aan ahaanayn oo idinka fiican qisaan ku xasuusinaya nin ayaa gabar aroosay habeenkii ugu horreysay arooska ayagoo casho dhigtay oo aad u faraxsan waa habeenka la yidhaahdo innagu waxaan dhahnaa gabdho waxay dhahaan caawa habeenkaygii oo habeenkii aad ku lahayd nolosha way oo faraxsan ayaa albaabka la miskiin kusoo gargaraacay gabadhii baa xagga albaabka xigta way istaagtay oo waxay tiri waa ay suuye qof miskiin oo tuugsanaya way wax siiye markaasay tiri waa miskiin tuugsanaya suuye baxdhe cayri saacadaan oo kale iyo albaabada laisku soo garaaca marqaankiiba ilowsiyey iyo farxaddii wax walba gabadhi waxay tiri aniga orod naga tag wax ma ku siinayna bax naga tag ninka guriga lahaa wuxuu kii soco bax ninkii waa iska tegay isagoo aad u niyad jabsan waxaa muddo kadib ninkii xaaskiisa waa iskhilaafeen muddaa waa la iskhilaafay waa la isdagaalay reerkii waa burburay ninkii naagta waa kala tagay waa isfureen ninkii buufis baa ku dhacay wuu waashay magaaladu iska galay isagoo waalan isagoo tuugsanaya oo ninkii waalan gabadhii intay ciddadii ka baxday oo iska joogtay baa nin kalaa guursaday gabadhii iyo ninkeedii dambe oo hameen isla cashaynayo guri fadhiya ayaa albaabka lagu soo gargaraacay barkii say way istaagtay way soo noqotay waxay tii waa nin miskiin oo tuugsanaya markaasuu yidhi maasha allah ma miskiin baa caawa noo yimid ma ilaahay baaba dadka naga soo doortay ilaahay baa nagu soo aadiyey cuntadaan sii lacag buu soo wixi lacagtaana ugu dar maxaan kuu qabaa naad u baahan tahay dheh nin miskiinka waxaa la siiyey raashinkii iyo lacagtii isagoo faraxsan markuu jeedsaday ayaa gabadhii waxaa la rabaa inay farxdo soo maa iyadoo ilmaynaysa bay soo laabatay ninkii uu fiiriyey wuxuu ku yidhi maxaad la ilmaynaysaa walaalay kugu dhaco la ooyeysaa markaase waxay tidhi waxaan la ooyayaa ninka miskiinka albaabka taagnaa waa ninkii hore oo iqabi jiray fiir waa ninkii hore oo iqabi jiray waxaana ilaahay ku ciqaabay yaan u malaynayaa hameen baa isaga oo saan oo kale ila cashaynaya ayaa miskiin albaabka soo garaacay markaasuu si xun ula hadlay ninkii waan isfuray wuuna waashay miskiinkiina hameenka si xun buu u cayriyey ninkii qabay gabadha ayaa ooyay isaguna wuu ilmeeyey markaasay tii adigana maxaa kugu dhacay si waxaan la ooyayaa ninka hameenkaas tuugsanayo albaabka gargaraacayay anigu ahaa fiir kanaa reerka qabay sadaqadii buu diiday maalkiibuu ku bakhaylay waa la waalay reerkiibuu ka tegey mid kale oo sadaqaysta kiibaa yaa fiicnaaday oo wax helay oo degay ilaahay dejiyey naagti baa ilaahay u guuriyey wain tatawallow yastabdil qawman hayrakum uma laa yakunu amhaalakum akhi ukhti walaalka muslimkaa gabadha muslimadda ah haddii maanta ilaahay shilin ku siiyey oo ilaahay wax ku siiyey oo aad shaqaysatid oo aad wax heli kartid waxaa jira dad badan oo baahan oo masaakiin waxaa jira hadda masaajidda way baahan yihiin dadkii ehelku way baahan yihiin meel walba baahi baa ka jirta wax sadaqayso sadaqana waxaa ugu fadli badan midda la siiyo sadaqa jaariya ku sadaqayso wax kasoo awoodi baxso insha allahu tacaala ilahay waxaan ka rajaynayaa inuu aniga iyo idinka sadaqadana jeclaysiiyo ilaahayna sadaqadaa baxsanay inuu ilaahay usan naga dayicin wixii kurba iyo dhibna haysana ilahay inuu nagaga faydo wasala allahuma calaa nabiyina maxamed wacala alihi wasaxbi wasallam